بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم ومالين تلباد بيشا barakeysan رمضان haddii ay afur ku tahay afur wanaagsan haddii weli ay ku tahay maalin soon maalin wanaagsan Ramadan mubaarak ay ku leenahay maanta toobigeen waxa uga hadlaynaa niyada waxaa wax walba oo adduunyada ama wax walba amal walba qabla waxa uu muhiimsan niyada marka maanta waxaan baranaynaa waxa la yiraahdo niyad Ramadaanka sidee loo niyeystaa marka waxaan baranaynaa niyada iyo Ramadaanka si loo niyeysto quraankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko muhiimadda niyada waa wax ma aha niyada waxa eray laga yiraahdo afka waa go'aan qalbiga ka soo go'ay haddii aad dhahdo maanta waxaan niyeystay macna aad dhahdo maanta waa sooma laakiin qalbigaadu niyada soonka aynu ku jirin waxa dhahday bis erey ayaa ku dhawaaqday waa sooma laakiin soonka niyadu waxa la rabaa inaad geliso in bisha Ramadaan ay tahay oo aan niyeysato inaad soomayso marka muhiimadda niyada waa sida waxa kale oo jirto oo culimada ay kala saaraan niyada goormee la niyeystaa waqtigee la niyeystaa soonka faradka ah sida bisha barakeysan Ramadaan aan ku jirno waxa waajib ah niyada xilliga markaad afurto inaad niyeysato ilaa waxa haysta jaanis ilaa laga gaaray ilaa waqtiga suxuurka inta u dhaxaysa waa inaad niyeysataa oo niyada Ramadaanka alla imaataa culimada inta badan way isku khilaafaan ku dhawaaqida in lagu dhawaaqo ereyada soonka laakiin sida raajixa ah waa niyada ayaa wax walba asal ah wax walba ku dhawaaqdo aan qalbiga jirin waxa ka asal ah niyada waa inaad la imaataa niyada maalin Ramadaan inaad soomayso aan niyeysataa sidoo kale waxa jira niyad soonka sunnada ah waa niyeysay asaga sidoo kale waa laga rabaa inaad niyeysato laakiin waqtiga ay ku kala duwan yihiin soonka sunnada ah haddii aad iska ilowdo habeenkii subaxdii aad soo kacdo waa iska niyeysan kartaa soonkaadan sunnadan uu ku jira marka inta la joogo culimada way isku khilaafaan culimada qaar waxay qabaan ibn Malik kamid yahay waxa dhan bisha Ramadaan markay soo gasho hal mar haddii niyeysato niyadaada Ramadaanka bisha dhan ayay ka kaafisaa waa waxa iimaanka ibn Malik qabo qaar kamid culimada fuqahada islaamka waxay qabaan waxa dhahan cibaadada waxa waa maalin walba ayaa laga rabaa inaad jadiidayso niyadaada marka waxa waa aragti culimada islaamka oo fuqahada isku khilaafeen waana naxariis ummadda subhanahu wa ta'ala oo aragtida culimada sidoo kale niyadu waxa kamid ah soonka qosalahan dadka jimka sameeya ama dadka dietka ku jiro haduu yiraahdo maanta waa sooma laakiin niyadiisa ay ku jirto inuu cayilka ama miisaanka iska dhimo oo niyada oo gasho bil Ramadaan ama oo niyeysan laakiin waxa kaliya maanta cunna la'aan oo ahaanaya cabitaan la'aan oo inuu diet sameeyo ama miisaanka iska dhimo macna Ramadaan kaas ma aha lama dhaho waxa la dhahaa wax kale oo niyadiisa ilaa qalbigiisa waxa ku jiro waxaan Ramadaan ahayn oo inuu iska dhimo miisaanka inuu diet galo marka ahamiyadda niyada waa inta sidoo kale waxa jirto xigmad weyn oo xigmadda soonka uu weyn oo niyada waxa cibaadooyinka dhan marka soonka laga reebo salaada waxa ku arkaya dadka waxa qofkan salaado dukana uu salaad badan yahay laakiin soonka ma ahan saas xigmadda uu weyn doodka waa waxa Allah aad ku dhaxeeyo cibaado qarsoon ku dhahay qofkan uu salaad badan yahay uu soon badan yahay lagu ma dhahay sababtoo waa wax qarsoon oo cibaadaha oo adig ku gooni ah haddii maanta iska imaato oo afka iska xirato oo dadka la soo fadhiisato dadku wax kaama ogo laakiin marka masaajidka acmaasha kala waxay noqonayaan amal la arki karo waxa gali karo riyaa ama status waxa laga maanta adoo salaad dukanin ama masaajidka gasho dadka hebel waa dukada hebel waa salaad badan oo hebel waa quraan akhris badan waxa jira amal badan oo la sameeyo ficil ah qaarkood dad arkay quraan akhrinayo oo fara badan hebel waa quraan ku akhriya qasaan way laakiin asaga niyadiis kuma jirto laakiin waxay ummadaas ka sheegto laakiin Ramadaanka waxa dhan uu ka duwan yahay Ramadaanka waa wax Allah subhanahu wa ta'ala iyo adoonkiisa u dhaxeeyo waa amal qarsoodi ah maanta daa'imaad dadku afka ka xirto laakiin niyadaada aan soon ku jirin aad ku jirto nin miisaanka iska dhimay aan niyeysatay waxa wax amalkaada leewa soon kuma jiro waxa u soontay wax ma wax soon ah bil Ramadaan ma laakiin waxyaabo kale niyadaada ku jiro laakiin amalkan waa amal qarsoodi ah waxaana asal u ah niyada marka sidaa darteed waa ina cibaadada Ramadaanka la imaana salaadaha aan dukanaa quraanka akhrina anagoo ikhlaas ka dhigayna niyadeena masaajidka marka gasho niyadaada inay tahay in quraanka ajir ka helayso aadan bin aadan istutusin dadka shacabka aan istusin dadka masaajidka ku joogan istutusin quraankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko
laakiin waxaa badan marka xilliga ramadaanka aan aragna maalinta koowaad ramadaanka waa qaadanay masaajidyada dad tiro badan ayaa buuxinaya badankood masaajidku way iska jiifaan way iska hurdayaan waxay usoo galeen niyaddooda waxaa inay jiiftaan ay ku nastaan laakiin ninka usoo galay niyeysto masaajidkaas inuu ictikaaf ku niyeysto quraan ku akhristo ajir ayuu leeyahay waxa keliya oo lagu kala baxay waxaa niyadda marka niyadda aan wanaajino acmaasheena wax walba aan samaynayn bishaan ramadaan aan u niyeysana khayr iyo allah dartii inaan u qabanayno camal walba xitaa sadaqada ala baxayso inay ikhlaas ka ahaato niyad ka ahaato inayn ka ahayn hebel waa ramadaan waa lacagoo la baxaa waa sadaqaysa hebel ramadaan waa soomanahay saan waa inaana dhihin wax walba niyadaada inaa geliso sidoo kale tusaale ahaan maalinta xilliga afurka dadaa biyo keeno timir keeno masaajidada iyo goobaha laamiyada fagaaraha qaarkood hebel waa sadaqa badan yahay hebel saan waay laakiin adi maxaa lagaa rabaa inay niyadaada u wanaagsato ilaah dartiisa ama bixiso qofkaas sooman ilaah dartiis ana u aamusan u afurinayso camal walba aad samaynayso bisha ramadaan aan ikhlaas aan badino niyaddan aan la imaano wax khayr leh insha allah waxay waay ilaahay khayr ayuu nagu dhameynaa insha allah camalka wax walbana niyadda ayaa asal ah niyadda aan wanaajino موضوعنا maanta inta ayuu ku egyahay sidoo kale waad ku mahadsantihiin dhageysiga barnaamijkan shada aad daawateen aad ugu mahadsantihiin waxay waa Ramadaan Kariim insha Allah Ramadaanka aan ka faa'iideysano khayrkiis ilaahna waafajiyo waxa uu muhiimsan Ramadaanka waa niyad la'aan soon ma jiraay aad u mahadsantihiin